sheekadeen maanta waxay ku saabsan tahay maskii weynaa. Tuulo yar ayaa waxaa ku agyaalay meel hawd ah oo aad iyo aad u weyn. Hawdkaas dhexdiisa waxaa ku noolaa mas aad u weyn iyo weliba laba cunug oo isaga dhalay. Sidoo kale duurkaasi waxaa ku noolaa Raamu cunug u dhalay isaga iyo weliba xaaskiisa. Raamu xaaskiisa waxay ku tiri orodoo noo soo shaqee, isaguna shaqo kale muuse yaqaanin ee wuxuu aaday duurka si uu geedo soo guro weliba dadku uga sii iibiyo. Maalin maalmaha ka mid ah Raamu uu doonayo in uu duurka ka soo gooyo geedo ayaa jidka waxa uu ku arkay maskii weynaa ilmuhu dhalay mid ka mid ah. Raamu uu fikiray, wuxuu yidhi haddii aan aniga dilin aniga ayay dilaysaa, waxaan loo baahan yahay inaan dilo. isla markiiba ficilkii ay ku dhaqaaqay oo maskii yaraa ayuu Raamu dilay. waa iska tegay isaga. hooyadii dhashay maskii ayaa waxay aad iyo aad u sugaysay inay labadooda cunug u imaadaan. waxay weydiisay cunugii kaleeto aaway walaalka Raamu, isagana wuxuu ugu jawaabay maana arkin. isla markiiba dareen ayaa iyada galay, waxayna tiri waa inaan raadiyaa. ayadoo raadinaysa cunugeedii ayaa waxay aragtay cunugeedii oo la dilay misna dhulka jiifa oo dhintay waqti hore. waxay ballan ku qaaday inay dili doonto wiilkeeda qofkii dilay ayna raadin doonto. isla markiiba waxay u dhaqaaqday dhankii tuulada ayadoo raadinaysa qofkii cunugeeda dilay. dadkii tuulada ayaa waxay ku tiri wiilkayga qofkii dilay ayaan u baahanahay aniga, haddii aan arko waan uga argudayaa oo waan dilayaa. dadkii tuulada waxay ugu jawaabeen inaysan aqoon u lahayn qofka cunugeeda dilay. waxaa warkii soo maqlay cunugii Raamu uu dhalay, wuxuuna u sheegay aabihii in ay raadinayso maskii uu soo dilay hooyadii. Raamu wuxuu weliis ku qanciyey inuu isaga dili lahaa maskan hadduusan isla markiiba nafta dhaafin lahayn. Raamu wiilkiisa wuxuu sheegay marnaba inuusan u sheegin in uu isaga aabihiisa dilay maska, haddii kale wuxuu ogaa inay dilayso. Raamu xabsi guri ayuu noqday, bannaankana umuusan bixi karin sababtoo ah waxaa aad u raadsanayay maskii dhalay cunugii. Raamu cunugiisa ayaa waxay weydiisay ma aragtay nin Raamu lagu magacaabo. maya, duurka ayuu aaday ayuu ugu jawaabay. maskii waa uu soo baxay isagoo aaday weliba dhankii duurka oo raadinaya Raamu ninka la yidhaahdo. wuxuu dhahay maskii been ayuu ii sheegay wiilkii yaraa ee waxaan u malaynayaa Raamu isaga inuu yaqaano. maskiina ismuu waalinay dib wuxuu ku soo laabtay gurigii, wuxuuna yidhi Raamu ii sheeg, waxaan u baahanahay inaan dilay. wiilkii yaraa wuxuu ku hakaystay hadalkiisii isagoo yidhi Raamu ma aqaan. laakiin maskii ayaa wuxuu yidhi haddii aad ii sheegi weyso ogaaw inaan nafta ku dhaafina. wiilkii yaraa waa cabsaday, wuxuuna yimid aabihii Raamu isagoo u sheegaya inuu maskii yidhi ama adiga ayaan ku dilayaa ama Raamu ii keen. Raamu waa uu cabsaday, wiilkiisina meesha ayuu uga tegay, wuxuuna u tegay maskii. maskii ayaa hadal ku hormaroo yidhi sababtaad wiilkayga u dishay ii sheeg. Raamu wuxuu ugu jawaabay orahdii ahayd haddaanan dili lahayn aniga ayuu dili lahay oo muusa dhaafeen. laakiin maskii diyaar muusa ahayn hadalka inuu ka sii maqlo Raamu, wuxuuna go'aan ku gaaray isla bartaasi inuu ku dilo. markiiba Raamu waa uu dilay maskii, isaga oo guul xaqiijiyey ayuu duurkiisa ugu laabtay. sheekadan waxaan ka baranaynaa in xayawaan aan wax ku yeelin aan la wax yeeleenin.